time okay time waa goor ama waqti laakiin waqti waa carabi af Soomaali waxa noqonaysaa goor okay looking at the time goorta fiiri okay su'aasha markaad weydiinayso marka qofka aad leedahay time kan hore u soo baranay laakiin de hal mar 10 dhigin uma filna waan ku inaan qofkii ay kugu soo laalaabato 10kii time ka hadlay kii shopping ka hadlay kii ka hadlay suuqa kii ka hadlay mid kasta wuu soo laalaaban inta soo jeersi aad si fiican aad luqadii u fahantaa ama ugu barato what time is it balida goortu goor sheegtadu waa imisa ama goortu waa imisa okay what time is it okay saacadu waa imisa kale weey and then saacadaha halkan saacadihi sawirkoodii halka la inoo dhigay kuwana halka la inoo dhigay okay laakiin waxaad u baahan tahay inaad horta fahanto saacadan qaabka u shaqeyso xafliga qof aan fahansanin inuu san jirin way jiraan dadaan saad u fahansanin hadda bil metro kale oo kale waatee maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa waa 10kii iyo rubuc bay sheegaysaa okay 10kii rubuc so 10kii rubuc meeday waa tan weeyaan okay so waxaan leenahay okay so kan waxaan oranaynaa waxa weeyaan waa 10ka iyo rubuc okay ama habeenimo oo iyo subaxnimo way am 20 okay subaxnimo very good biidu maxay noqonaysaa saacadahan fiiri biidu waxay noqonaysaa 14:45 oo u taagan waa saacada marna waxa la isticmaalaa 12 saacadood marna waxaad ka dhigan kartaa 24 saac marka 24 saac marka kooda markay marayso 12ka meesha kooda noqon lahayd waxay sii tirinaysaa 13 14 15 saac oo kale marka 13 wuxuu noqonayaa waa koodii waa labadii iyo labada iyo 45 daqiiqo oo galabnimo weeyaan okay si maxay noqonaysaa si saacada marka fiiriso waa 9ka iyo 9kii fiidnimo PM weeyaan 9kii fiidnimo iyo 20 daqiiqo okay 9kii say ku tahay saacadu horta number tan gaaban waa 9kii ku taagan tahay daqiiqaduna waxay ku taagan tahay maxay daqiiqadu waxay ku taagan tahay 4 marka 4 waa maxay 12 marka saacada laga tiriyaa labada iyo 12 ilaa halka waa 5 daqiiqo hadana labada waa 10 daqiiqo hadana maxaan ku radaa saddexda 15 saasoo kale 20 daqiiqo way noqonaysaa marka halkan waxay noqonaysaa 21 tan marka waxay u dhigantaa 21 tan waxay u dhigantaa basically waxay u dhigantaa 9ka fiidnimo weeyaan okay tan marka fiirsatay noqonaysaa tan waa 8 iyo 10 daqiiqo so 8 10 daqiiqo ka fiir waa ta ugu horeysa waxay noqonaysaa marka 8 iyo 10 daqiiqo okay ay ku taagan tan waa imisa tan saad u jeedo markasta saacada waan ta gaaban fiiri ta dheerna daqiiqadaha tirinaysa so tan saacad maxay ku taagan tahay koow markaad fiiriso iida saacadu horta waxay ku taagan tahay 6 ka dhaqaaqday 7 ku dhowdahay maxaan ku raahdaa daqiiqaduna waxay ku taagan tahay 50ka 12ka inta inay dhacdo 7 waxa ka dhiman 5 iyo 5 10 daqiiqo ka dhiman marka waxa weeyaan waa 6 iyo 50 daqiiqo noqonaysa 6 iyo 50 alright oo AM morningka tanna ka waran tanna waxay ku taagan tahay oo noqonaysaa waa koodii iyo barkii okay koodii iyo barkii so koodii barka ka fiiri koodii barka waxa u taagan 13 okay waa 13 iyo barkii very good taasi waxa weeyaan waa taas halkan imika listening ma bilaabayn halka waa ta kule saacada sometimes we use 24 o'clock saacada waxa isticmaalaa 24 saac marka 4 galabnimo oo kale waxa u dhigantaa ama 4 subaxnimo oo kale 4 galabnimo oo kale waxa u dhigantaa galabtii 16 o'clock okay 16 bay dhigantaa okay 5 marka maxay noqonaysaa 17 haye 6 maxay noqonaysaa 18 7 maxay noqonaysaa 19 saasoo kale okay imika dhegeysi waan ku dhegeysinaya casharkan listening to the time codkan dhegeyso markaad dhegeysato halkan listen and tick the time you hear okay waad dhegeysanaysaa saxdana saar midkaad maqasho codkan ku dhegeysiin doono saacadahan wax kamid ah ku jira oo la akhrinayo
marka kii aadan maqlin waa iska dhaafaysaa kii aad maqashay tigta saar good okay hal mar dhegeyso Time. Page 3. A. The children go to school at 8:30. B. The train leaves at 15:55. C. The market starts at 7:30 in the morning. D. The last bus is at 9 o'clock in the evening. very good so and fadlan jooji isla markaana kasha qoraalka haddaadan fahmin dib ugu cesho okay markaad conversationka aanu tagno ayaad si fiican u fahmi doontaa laakiin hadda kaagama shaqeynayo fadlan isku day inaad ka shaqeyso okay asking questions about the time muhiima inaad waqtiga saan oo kale su-aalahan oo kale aad sameyso what time does Maria get up okay at 7 o'clock and inaad su-aala samayn karto aad qof oran karto okay kasoo qaad marka maariyada tani and it can be any person adigaba kasoo qaad gabadhaada qof aad garanayso kadibna just su-aalo rabaa iska weydiiso dhexdooda hebel goormuu soo kacaa at 7 o'clock iskuulka goormaa la furaa at 7:30 goormaad quraacataa at 8 o'clock something like that su-aalo noocaasa ina just aad practice samayso hal mar haddaan fiirino conversationkii labadii conversation labadii dhegeysiyaan soo dhaafnay ka koowaad conversation buu ahaa wuxuu yidhi how do you come to glasska sidee ku timaadaa fancy ninka la yidhaahdo I walk to glass buu dhahay glasska waan usoo lugeeya what about you Sarim adiga Sarim ka waran gabadhii la oran jiray how do you usually come to glass sidee sida caadiga glasska sidee ku timaadaan waxay tiri well hagaag I come to glass by car anigu gaari baan ku imaadaa and you qaadir adiga qaadir oo adiguna miyuu qaadiraysaya rumay cabdiqaadir baa laga keenay magaca okay by bus buu dhahay anigu bus baan ku imaadaa okay kii u dambeeyay hadda aan dhegeysananay kan u ahaa the children go to school at 8:30 ardadu waxay iskuulka aadaan 8:00 the train leaves at 15:55 okay trainku wuxuu tagaa 3:55 the market starts at 7:30 in the morning wuxuu suuqu furmaa 7:00 subaxii the last bus is at 9 o'clock in the evening baska ugu dambeeya wuxuu tagaa 9 fiidnimo okay hal mar adoo u jeeda fadlan yara dhegeyso Transport. Page 2. How do you come to class, Vincent? I walk to class. And what about you, Zareen? How do you usually come to class? Well, I come to class by car. And you, Kadir? By bus. Time. Page 3. A. The children go to school at 8:30. B. The train leaves at 15:55. C. The market starts at 7:30 in the morning. D. The last bus is at 9 o'clock in the evening. waxaan rajeynaya fahamtay casharkaas insha allah ballanteenu waa casharka xiga